kulanti wanaagsan halkan waa Gra TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn wararka ugu dambeeyay dagaalka shabaab iyo macusleyda beesha xawaadle oo waji kala yeeshay argagixisada oo ka carartay qaar kamid ah saldhigyada ugu waaweyn ay ku lahaayeen aadan yabaal iyo aageeda militariga oo ku biiray dagaalka iyo kooxda oo la hareereeyay dawladda federaalka oo baaritaano culus ku bilowday duqeymihii lagu beegsaday ciidamada macusleyda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaday tilaabo ka farxisay ciidamada xaquudirirka iyo Mareykanka oo ku dhawaaqay go'aan halis weyn ku noqon kara dagaalada ka socda Hirshabelle dawladda Turkiga oo ka carootay tilaabo ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya kuna cadaadinaysa madaxda dawladda inay xiriir ku jiraan dawladda Imaaraadka haddaba maxay tahay sababta dawladda federaalka ee indhaha uga eeganayso gardarada Abu Dubai oo dhaqaale tirabeel ay xilligan ku bixinaysa burburinta dawladnimada Soomaaliya warbaahinta Ciraaq oo ka shaftay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka dalbaday dawladda Ciraaq inay Soomaaliya u dayactirto warshash shidaal oo 51 sano ka hor xukuumadda Baghdad ay ka dhistay gudaha Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo loo haysto in dhaqaalihi ugu badnaa ee dalku ku baabiyay safarada dibadda tirada safarada uu galay madaxweynaha 3 sano ee xilka uu joogo iyo qiyaasta lacagta ku baxday oo la soo bandhigay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas aad ku daawan doontaan warkay baweynaha hadii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaasanayaan idin soo gudbin doonaa si ay wareen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada aad soo gudato waajibaadka alle dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka macadka diiniga ah ibnu Cabbaas Islamic Online wuxuu ugu bishaareynaya ardayda qurba joogta in hab online ay uga baran karaan Quraanka Kariimka hikaada siirada nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee axaadiista sixidda carabka iyo af Soomaaliga macadku wuxuu ugu barbaarinayaa ubadka diinteena suubana islaamka iyo afkeena hooyo ee Soomaaliga hab casri ah oo online ah goob kasta iyo goor kasta wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda aynu ku bilownaa ciidamada macusleyda beesha xawaadle iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada shabaab ayaa waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo ay ka sameynayaan qaybo kamid ah degmada aadan yabaal oo la sheegay ciidamadu inay gudaha u galeen isla markaana saacadihii la soo dhaafay ay howlgal ka sameeyaan sida xogaa Gra TV uu ku helay ciidamadan oo hadda degan intooda badan amaba saldhig ka samaystay duulaadka degmada aadan yabaal ayaa waxa qorshu yahay gabi ahaanba inay degmadaas ka saaraan kooxda argagixisada oo dib u qabsatay kadib weerar culus ay ku soo qaadeen waxaana hadda ku biiray ciidamada ku sugan duulaadka degmada aadan yabaal ee la rabo inay saldhigyada waaweyn argagixisada weerarada ku qaadaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka soo gurmaday deegaanada ay macusleyda beeshu awood ku leedahay isla markaana raba inay si toos ugu biiraan dagaalka ila dadka deegaanka ayaa Gra TV waxay u xaqiijiyeen in lagu ballamay in saacadaha soo aadan gabi ahaanba la wareego degmada aadan yabaal oo la sheegay wali inay qayb kamid ah ku sugan tahay kooxda argagixisada shabaab isla markaana ciidamadii gudaha u galay degmada aadan yabaal howlgal ay ka sameeyeen kadib intooda badan ay dib uga soo baxeen oo abaabulka ay ku soo biiraan waxa ku biiray abaabulka dagaalka saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana dawladda iyo sidoo kale hogaamiyaasha ciidamada macusleyda ay wada dejinayaan qorshe looga taqallusi lahaa joogitaanka argagixisada ee gabi ahaanba degmadan oo la rabo in gacanta dawladda federaalka Soomaaliya si buuxda loogu soo wada celiyo dhan kale waxa la soo warinayaa in kooxda argagixisada shabaab ay cabsi xoogan soo food saartay isla markaana ay ka carareen inta badan saldhigyada ay ku lahaayeen degmada aadan yabaal iyo deegaanada ku xeeran inkastoo la sheegay kooxdu dhankeedan awoodda ugu badan ay iskugu keentay furimaha dagaalka ee xilligan ay ku dagaalamayaan ciidamada macusleyda beesha xawaadle isla markaana awooddeed ugu badan ay saarayso sidii beeshan ay u jibin lahayd howlgalladoodana ay u naaqusin lahayd saraakiil u hadlay ciidamada macusleyda oo waraysiiyay warbaahinta waxaa carabka ay ku dhufteen in lagu ballamay la iskuna waraystay inaan dagaalka la joojin ilaa inta degmada aadan yabaal argagixisada gacanteeda laga saarayo laguna soo celinayo gacanta dawladda sidoo kale waxay ka dalbadeen dawladda federaalka ee Soomaaliya inay hawada soo geliso diyaaradaha dagaalka Akinji iyo T-129 si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada macusleyda iyo kuwa dawladda federaalka isla markaana duqeymo culus ay ula beegsadaan saldhigyada argagixisada ay ku dhuumaalaysanayso arrintaas oo fuudeyn kartay in maleeshiyaadka la jabiyo waxaa laga wada dhar sugayaa tilaabooyinka ay qaadi doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laga sugayo in duqeymo culus ay ka fuliso aadan yabaal iyo ageeda saldhigyada argagixisada ay ku leedahay si gabi ahaanba kooxda awoodeeda loo weeqo isla markaana dhabar jabin xoogan loogu sameeyo dhan kale waxaa la sheegay in la dejiyay istiraatiijiyad ballaaran oo loo arkay inay tahay mid lagu jabin kara argagixisada oo awood badan gobolkaas soo saaray isla markaana raba inay iska difaacaan weerarada uga imaanaya dhinaca macusleyda oo xilligan dhankooda u qalab qaatay sida argagixisada ay u jabin lahaayeen isla markaana ay uga saari lahaayeen aadan yabaal iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran
waxaa xogo ay tabaxayaan in ciidamada macawisleyda iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya kooxda ay hareereeyeen islamarkaana dhowr jaa ay ka degaan arrintaas oo dhabarjab xoogan ku argagixisada islamarkaana cabsida iyo walwalka ballaaran ee xilligan ay qabaan soo dedejisay si kastaba waxaa qorsho uu yahay in saacadaha soo socda howlgallo ballaaran la qaado waxaana dhankooda ay ku dhawaaqeen maamulka hirshabelle amaba ay iclaamiyeen dagaalkii ugu xooganaa oo ay sheegeen in lagu qaadayo fariisimaha argagixisada islamarkaana aan loo kala hari doonin shacab iyo dowlad lana rabo in gebi ahaanba kooxda lagu jebiyo taliyaha ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa sambalolshe iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan militariga soomaaliya oo dhankooda ku biiray dagaalka iyo hogaamintiisa ayaa waxaa wacdi ay ku mareen in dowladda federaalku ay markan isticmaali doonto awood kasta oo argagixisada ay ku jebin karto iyadoo ay qayb ka yihiin diyaaradaha dagaalka ee turkigu dhowaan uu ku wareejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya ee akinji iyo t 129 oo la filaya in saacadaha soo aadan hawada la geliyo si toosahna argagixisada duqaymahooda ay u bilaabaan uguna biiraan dagaalka la raba in aadan yabaal gacanta dowladda lagu soo celiyo dhan kale waxaa soo baxayo xogo tilmaamaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya amar buuxo uu ku siiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka axmed macalin fiqi in awood kasta uu isticmaalo dabarjaridda argagixisada sidoo kale taliyaha ciidamada militariga soomaaliya odawaa yuusuf raage ayaa la sheegay dhankiisa in amar buuxo loo siiyey isticmaalka diyaaradaha dagaalka oo dowladda federaalku ay isaga ku wareejisay in diyaaradahaas habka uu doono uu isticmaalo islamarkaana uu ku garab siiyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee argagixisada dagaalada kula jira mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegeen in saacadaha soo socda war farxadle uu kasoo yeeri doono dhinaca aadan yabaal iyagoo soo jeediyey in isha lagu wada hayo howlgallada ballaaran ee dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheynaysa in halkaas lagu qaado dhan kale dowladda federaalka ayaa waxaa baaritaano culus ay ku bilowday duqaymihii lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa macawisleyda beesha xawaadle oo dhabarjime rabay inay ku sameeyaan argagixisada xilli ay socdeen dagaallo culus oo macawisleyda iyo kooxda ay iskaga hor yimaadeen duqaymaha sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada waxaa lagu dilay ilaa iyo 12 xubnood oo ka tirsan ciidamada macawisleyda qaarkood oo dhaawacay soo gaareenna waxaa la keenay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo saraakiisha arrintaas ay ku tilmaameen dhabarjibin islamarkaana ay ka dalbadeen dowladda federaalka soomaaliya in baaritaano degdega ay ku samayso howlgalkaas iyo sida uu dhacay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqday dhaawacyada ciidamada macawisleyda ee la keenay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa xogu waxay tibaaxayaan in amar buuxo uu ku bixiyey in baaritaano degdega lagu bilaabo duqeymaha lala beegsaday ciidamada macawisleyda iyo cidda amarkeeda bixisay amaba sida qaladkaasi uu ku dhacay dowladda federaalka ayaa sheegtay in warbixin ay ka soo saari doonto waxaa madaxweynuhu uu ku amray dhinacyada arrintan uu xil saaray inay soo gudbiyaan warbixin buuxda oo la xiriirta howlgalkaas iyo sida duqayntaas loo fuliyey iyadoo laga sugayo dowladda federaalka in warbixin dhammaystiran ay ka soo saarto duqaynta lala beegsaday ciidamada macawisleyda ee rabay dhabarjibinta inay ku sameeyaan argagixisada islamarkaana ay ka saaraan godadka iyo dhufaysyada ay ku jiraan ay kala dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca kale howlgalka ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo soo gaabiyo ayaa waxa ay soo saareen go-aan la xiriira duqaymaha ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya kaas oo su-aal la geliyey taliska maraykanka waxay ku dhawaaqeen in ay joojinayaan shaacinta macluumaadka la xiriira khasaaraha ka dhasha duqaymaha ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya tilaabadan ayaa imaanaysa iyadoo maamulka cusub ee madaxweyne trump weli uu dejinayo siyaasaddiisa amniga iyo militariga ee gobolka tan iyo markii trump xafiiskuu la wareegay maraykanka ayaa gudaha soomaaliya waxay ka fuliyeen 24 duqayn kuwaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan ururada argagixisada ee shabaab iyo sidoo kale isis ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah bartamaha iyo sidoo kale bariga soomaaliya weeraradan ayaa qayb ka ah dagaalka maraykanku uu kula jiro kooxaha argagixisada ee uu ku taageerayo dowladda federaalka africom ayaa horey si joogtaa waxay ugu shaacin jirtay khasaaraha weeraradaas iyadoo war-saxaafadeedkii 12 abril lagu sheegay in hal xubin oo ka tirsan kooxda argagixisada isis lagu dilay duqayn ay fuliyaan maraykanku sidoo kale waxaa maraykanku mar walba ay baahin jireen khasaare rayid ah haddii ay jiraan taliska africom ayaa sabab uga dhigay go-aankan in la ilaalinayo amniga howlgallada iyagoo sheegay in aysan shaacin doonin faahfaahinta gaarka ah ee cutubyada iyo sidoo kale qalabka military ee la adeegsanayo waxaana africom ay meesha ka saaraysaa warbixinadii ay ku baahin jirtay khasaaraha dadka rayidka waxaa dad badan ay aaminsan yihiin in arrintan ay keeni karto in maraykanku ay ka aamusaan amaba ay inkiraan dad shacab oo waxyeele ay ka soo gaarto duqaymaha ay ka fulinayaan qaybo badan oo ka mid a soomaaliya kuwaas oo ay ku beegsanayaan kooxaha argagixisada ah qaybihii dhexe ee warka garaatiif ayaa daawanaysaan
dowladda turkiga ayaa si weyn waxay uga carootay go-aan dowladda federaalka soomaaliya ay qaadatay waxaana xukuumadda ankara si weyn ay ugu cadaadinaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda kale ee dowladda in gebi ahaanba xiriirka u jiraan dowladda imaaraadka carabta oo xilligan dhaqaalo fara badan ku bixinaysa burburinta dowladnimada soomaaliya iyo sida uga hortegi lahayd qorshaha siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana wakiil uga ah qorshayaashaas fulintooda xubnaha mucaaradka oo ay ugu horeeyaan axmed islaam axmed madoobe siciid cabdullaahi deni iyo xubno kale oo mucaarad ahoo la sheegay in abuduba ay dhaqaalo fara badan ay jeebka ugu shubtay si ay u burburiyaan dhammaan qorshayaasha dowladda ee ugu horreyso qabashada doorashada qof iyo codka ay ka shaqaynayso dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ilo ku dhow xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya warbaahinta ay u xaqiijiyaan waxaa dowladda turkigu fariin adag ay usoo dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo usoo jeedisay inuu qaato go-aan adag oo ka dhan ah dowladdan carbeed ee imaaraadka oo kula loolamaysa dowladda turkiga khayraadka dalkeena iyo soo saaristiisa kana caraysan go-aanka dowladda federaalka soomaaliya ay shidaal baarista soomaaliya ugu xirtay dowladda turkiga oo saaxiibo dhow la ah dowladda dhexe islamarkaana xilligan gabagabo marsiinaysa shidaal baarista ay ka samaynayso gudaha waddanka qorshuhuna uu yahay dhowaan baaritaano rasmi ah inay bilowdo ankara waxay aaminsan tahay in abuduba ay cadaadiska xoogan ay saarayso dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay tahay in dowladda federaalku ay go-aan adag ka qaadato islamarkaana ay caddayso mowqifkeeda sidoo kalena ay si weyn u difaacday heshiiskaas ay la gashay dowladda turkiga iyo sidoo kale fulinta danaha turkiga ee gudaha soomaaliya waxaa su-aal weyn dhanka kale ay ka taagan tahay sababta dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay uga meermeerayso in go-aan adag ay ka qaadato xukuumadda abudubay oo iyadoo si cad ugu soo jeesatay burburinta dowladnimada soomaaliya iyo la dagaalanka dowladda rabtana inay ka takhalusto madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uusan qaban doorasho qof iyo cod ah oo ay u aragto in haddii ay dhacdo isagu kusoo laaban karo waxaa madaxda dowladdu marar badan ay muujiyeen sida dowladdan carbeed faragelin qaawan ay ugu hayso madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo sida khatar ay ugu tahay waddanka khudbaddii ugu dambeysay uu jeediyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barrane wuxuu ku muujiyey inay tuhmayaan inay jiraan dowlado shisheeye oo mucaaradka lacago soo siiyey oo uu la jeeday dowladda imaaraadku inay ugu horreyso horey dhankiisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u muujiyey walaaciisa tillaabooyinka ay qaadayaan imaaraadka carabta ee gudaha soomaaliya haddana waxaa hoosta uu ka xariiqay inay ixtiraamayaan oo hadda aysan diyaar u ahayn inay kala dhintaan dowlad sidaas saameyn u leh maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo yeerayay xogo sheegaya in imaaraadka carabtu lacag ay usoo dhiibaan qaar ka mid a xubnaha mucaaradka kuwaas oo qorsheynaya inay ka hortagaan doorashada dadweyne dagaalka argagixisada gudaha muqdishona ay ka abaabulaan qalalaase ilaa xukuumadda lagu qasbo inay ka soo laabato doorashada qofka codka laguna laabtay teendhada afisyoon iyo doorasho dadban oo imaaraadku ay rabaan inay soo dhistaan musharax iyagu ay wataan talada dalkana uu ku soo baxo si danahooda ay u fulaan islamarkaana ay u burburiyaan go-aamo badan oo ay qaadatay dowladda federaalka ee soomaaliya dhan kale horey axmed macalin fiqi xilliguu ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in imaaraadka carabtu ay soomaaliya ula dhaqmaan siyaabo aan habboonayn balse wuxuu sheegay in marar badan oo arrintaas ay kala hadleen ay ballan qaadeen inay joojin doonaan ficilada iyo xadgudubyada ay ku hayaan soomaaliya dhan kasta marka la iska taago dowladda carbeed ee imaaraadka oo caan ku ah inay madax uga istaagto dowladaha soo koraya waxaa soomaaliya u beegsanaysaa sababo dhowra oo ay ugu horeeyaan in danaheeda ay ka weysay islamarkaana dowladaha kale ee khaliijka dowladda federaalku ay kala safatay xilli aad loo wada xasuusto in madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gebi ahaanba dowladdan xiriirka u jaray kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu heega ka soo furay dowladda imaaraadka islamarkaan uu wanaajiyey xiriirka kala dhexeeya inkastoo markii dambe la iskugu dhacay sababo la xiriira qorshayaal ay la timid dowladda imaaraadku oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u fulin waayey hadda waxaa madaxweynaha qaranka dowlado iyo sidoo kale siyaasiyiin badan ay u soo jeedinayaan inuu xiriirka u jaro dowladdan islamarkaana uu ka hortago qorshayaasha xadgudubka ay ku dhaqaaqayso ay ugu horeeyaan macaamilka ay la leedahay dowlad goboleedyada dalka ay xiriirka u jaray dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka dowladda imaaraadka waxaa la aaminsan yahay inay ka shaqaynayso sidii loo kala goyn lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada ee hadda taabacsan si gooni ah maamulka koonfur galbeed oo la sheegay in lefta garan lacago fara badan akoonadiisa lagu soo shubay dowladda imaaraadkuna ay ka shaqaynayso sidii uu qabsan lahaa doorasho ay kasoo horjeeda dowladda federaalka ee soomaaliya una u raaci lahaa liiska dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland arrintaas oo gebi ahaanba fashilin karta qabashada doorashada qof iyo codka keeni kartana in beesha caalamka ay ku qasabto dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in 3 maamul goboleed oo maqan dalka doorasho aysan ka dhici karin islamarkaana qasab ay tahay iyaga in la qanciyo ama la aado hanaan ay ku qanacsan yihiin oo ah teendhada afisyooni iyo doorasho dadban taasoo ah qorshaha ugu weyn ee imaaraadku uu leeyahay gratifa ayaa daawanaysaan
warbaahinta ka soo baxda dalka Ciraaq ayaa waxay sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbaday dowladda Ciraaq in dayactir ay ku samayso warshad shidaal oo gudaha Soomaaliya dowladdaasi ay ka dhistay 1974 oo ku beegan 51 sano ka hor. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu socday shirka 34 ee jaamacadda Carabta ee ka dhacay magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq waxa uu ka dalbaday dowladda Ciraaq inay gacan ka geysato dib u dhiska warshadda oo ku taala waqooyi bari ee magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. warshadan ayaa waxaa dhistay shirkadda Ciraaq ay leedahay ee General Company of Oil Projects la yiraahdo, waxaana awood ay u leedahay inay sifayso 10,000 oo fuusto oo saliid ah maalintii, taasi oo u dhiganta 500 kun oo tan sanadkiiba. markii la dhisay warshadan heshiisku wuxuu dhigayay in Ciraaq ay maal geliso dhismaha warshadda, halka Soomaaliyana ay bixin lahayd kala bar qarashaadka muddo 3 sano gudahood ah marka ay hawl gasho. warshaddu waxay shaqaynaysay ilaa 1980kii, xilligaas oo shidaalka Ciraaq la joojiyay sababo la xiriira dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq. intaa kadib wax soo saarka warshaddu uu sii yaraanayay ilaa uu gaaray 6% sanadii 1989kii. markii dagaalkii sokeeye uu ka qarxay Soomaaliya horaantii 1990yadii, warshaddu waa ay burburtay si la mid ah kaabayaasha dhaqaale ee dalka oo gebi ahaanba burburay. hadda dowladda Soomaaliya waxay danaynaysaa dib u dhiska warshadan iyadoo qayb ka ah dadaalada ay ku doonayso in kheyraadka dalka looga faa'iideysto. sida la sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud codsigiisan wuxuu u gudbiyey madaxda sare ee dowladda Ciraaq, ilaa iyo hadda se lama xaqiijin in ballanqaad rasmi ah loo sameeyo oo lagu dhisayo amaba lagu dayactirayo warshadaas. waxaase dowladda federaalku ay rabtaa in warshadan iyo kaabayaal kale oo muhiim ah lasoo nooleeyo iyadoo la kaashanaysa dowladihii hore u dhisay, isla markaana rabta in maalgelin ay ku sameeyaan, hadhowna dakhliga ka soo baxa qarashaadka uga baxay dhankooda ay ka goostaan. dowladda federaalku waxay sheegtay inay xoogga saarayso ka shaqaynta horumarinta dhaqaalaha waddanka iyo sidoo kale ka faa'iidaysiga kheyraadka dalkeenna si looga baxo dhaqaalaha caalamka Soomaaliya uu ku taageero oo hadda waddanku dhibana uu yahay, maadaama dowlado badan oo caalamka ay joojiyaan deeqihii Soomaaliya ay siin jireen. taasina ay keentay in maalgelin loo leeyahay howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee USOM, doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo badan oo muhiim u ahaa waddanka. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu eedeeyay in dhaqaalihii ugu badnaa ee dalka uu ku qarash gareeyay safarada dibadda ah, waxaana la soo bandhigay tirada safarada ee uu galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qiyaasta lacagaha ku bixi kara oo ku dhow ilaa iyo 9 milyan oo dollarka Mareykanka ah. 3 sano ee xukunka uu jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ka soo bilaabanaysa 15 bishii May 2022 waxa uu galay madaxweynuhu 110 safar. safaradan qaarkood waxay socdeen ilaa iyo 7 cisho, qaar kalena waxay socdeen 40 saacadood. sidoo kale waxaa jira booqashooyin 4 ilaa 3 maalmood intuu u dhaxayso socday oo madaxweynuhu dalka dibaddiisa ugu maqnaa. celcelis ahaan safaradan waxaa la sheegay inay qaateen 410 maalmood oo ka mid ah muddaxilaadka 3 sano ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay u dhigantaa 15 bilood oo madaxweynuhu uu ku bixiyay safarada dibadda ah. sida safarada madaxweynuhu wadamada ugu kala galay haddaynu eegno, Uganda wuxuu safray 13 jeer, Djibouti 11, Kenya 10 mar, isku tagga Imaaraadka Carabta 9 jeer, Eritrea 8 mar, Tansaaniya 8 mar, Ethiopia 7 mar, Turkiga 7 jeer, Qatar 7 jeer, Masar 5 mar, Sacuudi Carabiya 4 jeer, Mareykanka 4 mar, Italy amaba Talyaaniga 3 mar, UK amaba Ingiriiska 2 jeer, Switzerland 2 mar, Burundi 2 jeer, Belgium, Azerbaijan, Algeria, Kuwait, Norway, Rwanda, Germany, Sudan, Libiya, Ciraaq iyo China min hal mar ayuu u safray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. celcelis ahaan safaradan dhaqaalaha ku bixi kara waxaa la sheegay inay dhan yihiin inta u dhaxaysa 7 ilaa iyo 9 milyan oo dollarka Mareykanka, maadaama safarada qaarkood lagu qarash gareeyay ilaa 100,000 oo dollarka Mareykanka, kuwa ugu hooseeyana la sheegay 60 ilaa iyo 70,000 oo dollar inay ku baxeen, taas oo ka dhigan in dhaqaale fara badan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qarash gareeyay safaradiisa dibadda ah. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqonayaa madaxweynaha ugu safarada badan ee soo maray Soomaaliya, waxaan la wada xasuustaa in xilligiisii mucaaradku uu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marar badan uu ku eedeyn jiray in safarada dibadda waqtigiisa iyo dhaqaalaha dalkaba uu ku dhameeyay, isla markaana waxaa ballanqaadyada uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisa ololaha doorashada qayb ka ahayd inuu yareyn doono safarada dibadda ah iyo sidoo kale dhaqaalaha faraha badan ee socdaalka dibadda dowladdu ay ku bixiso. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda. daawad hadday tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqatan ugu soo biir subscribe dhow si share garaa saaxiibo badan si uu gaaro. tan iyo kulanti dambe ammaan Allah.